moogtahay inay jiraan dad ku bixiya lacaga waaliya si ay ugu ekaadaan dadka caanka. sawirkan idiin muuqda ma aha gabadh ee waa nin, waxaana lagu magacaabaa Jordan James Park. wuxuuna ku bixiyay lacaga badan si uu ugu ekaado xidigada caanka reer Mareykan ee Kim Kardashian. waxaana loo buuxiyay bishimaha iyo wejiga, macnaha waxa loo mariyay bocbocyo madow fujiye oo ka fitan daawade. wuxuuna ku bixiyay lacaga dhan oo gaadhaya $150,000 Mareykanka si uu mara qalliinadaas uguna ekaado gabadhaas. ninkan waxa lagu magacaabaa Toby Sheldon, wuxuuna galay qalliin isku qurxinayo sidoo ugu ekaada fanaanka caanka ee reer Mareykan ee Justin Bieber. Toby wuxuu ku bixiyay $100,000 Mareykanka. qalliinkaasna waxa lagaga bedelay jirkiisa iyo timihiisa. ugu dambeyntiina wuxuu u dhintay daawooyinkii qalliinkii kuwaas oo jirkiisa sun ku noqotay. Herbert Chavis, wiilka dhalinyarta, wuxuu ka soo jeedaa dalka Philippines, wuxuuna qaatay qalliino fara badan si ugu ekaado jilaaga caanka ee Superman, isagoo doonaya inuu yeesho muuqaalka Clark Kent oo ah qofka matala Superman, gaar ahaan sanka iyo daamanka. wuxuuna ku bixiyay qalliinkaas lacag dhan $30,000 Mareykanka. haddaba daawada su'aal, haddii lagu dhaha lacag qalliinkaasoo kale isku samee, waa kuma qofka aad isku ekaysiin lahayd? kommentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto youtube-ka profile-ka saaranna aad subscribe dhahdo.